baadiya gadaal intuu kaga yimid go'i nabiga ku jiiday markaas nabiga indhuhu casaadeen meeshina calaamad ayaa ku hadhay markaas waliba yiri xoolahan aad haysid adiguna malihid aabahana malahayn ilaahay ba ku dhiibay nasiibu ka yiri markaa nabiga saantu yaga buu iska qoslay wuxuu boqol halaad oo geela siiyay buu yiri imaam hada huwa al-imam imaamkeenu waa isaga soo ma hinde soo salaama salaada kaliya ma waxa laga daynay ogow nolosho dhan ba nabiga laga daynaya dawladdu dhisay wuxuu ku dhisay cadaalad buu ku dhisay iyo kala dambeyn iyo ismaqal iyo isku naxariisasho Umar ibn Khattab khila Abi Bakr as-Siddiq Allah raali ka noqday maalintii talada ummadda loo dhibay Abi Bakr go'isa intuu qaatay buu magaalada u suuqa ayuu iska tagay wuxuu ahaa nin bagaashla oo dharka iyo badeecada suuqa magaalada Madiina ku iibin jiray Abi Bakr ganacsado ah Umar ibn Khattab ka daba hadlay Abu Bakr intaad u socotaa wuxuu yiri waxaan u socdaa buu yiri hay reerkaygii baan masaariiftoodii soo ridayaa buu ma haleelisid buu ka yiri waayo ummadda nabi maxamed siday u dhan tahay xilkeygii baa madaxa lagu saaray buu ka yiri reerkayga ayaa ii biilin ashuureynayna annaka ashuureynayna aad masjidka ku noqo masjidka fadhiisay buu madaxda zamanka masaajidda zamankaas waxay ahayd meesha ummadda looga taliyo ha masjidku wufuud markay timaado magaalada Madiina masjidka ugu imanaysa nabiga Abu Bakr iyo Umar martii haday timaado masjidka lagu qaabilayay dadin hadii la barayo masjidka lagu barayay waa meesha jaamacada asxaabu Muhammad ay wax ka soo barteen waa masjidka halka fadhiiso ummadda u talibu ku yiri way suureeyeen hal shuurihi waxay u soo sameeyeen qoondayar ay yiraahdeen maalintii reerkiisa in wixii ku filan baytul maalka laga siiyo laba sano iyo dhowr bilood Abu Bakr talada ummadda u hayay Soomaaliya maalintuu geeriyooday Abu Bakr godka lagu riday inankiisa Cabdiraxmaan ibn Abi Bakr oo dhaqaale sida ayaa yimid oo baytul maalkiiba lacagtii ku soo celiyay Cabdiraxmaan bin Auf ayaa ku yiri waa maxay lacagtan aad wada halkeed ka keentay wuxuu aabba igula dardaarmo igu yiri Allah u naxariisto Allah raali ka noqday waxantiya hadaan dhinta maanta dhulkaas aan leeyahay dhulka gad oo iibi labadii sano iyo muddadii talada ummadda aan hayay baytul maalka muslimiinta intaasan masaariif ka qabaaye igaga celiyay buu qiyaamaha inaan waxba la igu yeelan aniga innaka muslimiinteena zamankan waxa laga yaabaa gaalay ku sheegan horumar horumar 200 oo sano oo hadda 200 oo sano oo isticmaalkan adduunka Ingiriisku qaybiyay taariikhdii 200 ee sano dhalinyaradena lagu qufulo iskuulada loogu dhigaa 200 oo sano ka hor ummadii talinaysay caalamka hogaaminaysay taariikhdeedina maanta waa la inaga masaxay 2 sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda Abu Bakr u hayay wixii masaariif baytul maalka uu ka qabay uu soo celiyay laana umay qabin yaku mas'uuliyadda inay dhaqaale ku qaataan mas'uuliyadda waxay u arkayeen xilligii ummadda nabiga loo adeegay ummadda loo khidmeynayay lidaalika mas'uuliyadda way ka baxsanayeen yaku waxay uga baxsanayeen inay adeeg tahay bay fahmeen yaku halka inaguna maanta mas'uuliyadda aan lacag ku doonayna lacag ma meel kaste maaha wadankan oo kaliya ma caalamul islaami oo dhan ba maanta noocaas adeeg bay u arkeen ummadda u adeegayaan lidaalika mas'uuliyadda way ka baxsanayeen yaku zamankan dad badan oo muslimiin waxay u arkaan xilka xilligii aqal la dhisan lahaa ee ubadka wax loo qaban lahaa inay tahay lidaalika way ku ordaan bal way iibsanayaan ba kuraasadii si loo doorto lacag u bixinaya lacagta u bixinaya muxuu uga jeedaa hadhow tolo lacag badan ha ka qabatid buu leeyahay meesha aqal ha u dhisid ciyaalkaaga Cabdiraxmaan bin Auf Allah raali ka noqday lacagtii iyo wiilkii Cabdiraxmaan in Abi Bakr intuu soo qaaday ayuu Umar u keenay bal dhageyso Umar oo ninkan wuxuu leeyahay markii arintii Umar loo sheegay Umar qabriga Abu Bakr buu dul tagay wuxuu yiri Abu Bakr waadna daalisay buu keenay waadna daalisay aniga iska daayay madaxda ka dambayso oo dhan siday u leeyihiin Abu Bakr ku dayda ayaadna daalisay buu keenay Abu Bakr مثل عمر بن الخطاب مدح ديس وحو كلا دردارميي صدح شيء هبدلين بو oran jiray صدح شيء aqaladiina albaabadoodu iriddu ha furnaato